qiso dhacday xilligii hogaamiyaha muslimiinta uu ahaa Umar ibn Abdul Aziz maalmaha kamid ah asiga iyo iyaaladiisa oo isla socdaan ayaa waxay soo galeen masaajidka marka Umar ibn Abdul Aziz uu soo galay masjidka wuxuu lugihiisa jag ku siiyay ama ku istaagay nin meesha fadhiyay ninkii meesha fadhiyay ayaa xanaaqay wuxuu dhahay waa ninka noo igu istaagay dameer miyaa tahay Umar ibn Abdul Aziz ninka ayuu fiiriyay wuxuu dhahay anigu dameer mi ihiya inma ana Umar ibn Abdul Aziz anigu waxaan ahay Umar ibn Abdul Aziz ninka ilaaladiisa Umar ibn Abdul Aziz ayaa xanaaqay wuxuu dhahay ya amiiral mu'miniin amiirka mu'miniinto ninkan wuxuu leeyahay dameer miyaa tahay buu ku leeyahay ma qabta oo ma ciqaaba Umar ibn Abdul Aziz ayaa wuxuu dhahay su'aal ayuu weydiiyay wuxuu leeyahay dameer miyaa tahay aniga waxaan dhahay miihi sheekada meeshay ku dhamaatay bal fiiriye walaalayaal bal fiiriye akhlaaqda wanaagsan Umar ibn Abdul Aziz uu la dhaqmay ninkan asigu awoodo in yaani ninkan uu qabto ama si kale uu ciqaabo laakiin wuxuu kula dhaqmay wixii akhlaaq wanaagsan yaani doodahayna ama ficiladiina ama jawaabta aan jawaabayno waxyaalo yar aan ku joojin karno meesheeda ما نقبك ودقم ما تلو ليه ما دبال مية تلو ليه ما سياس مال مية تقف كلية أديك أنا ما أنا ما سديسها أنا مية تقانا إن الدارك مش الدارك أتكسم اسم الله بانا بحلو باني أخلاق عمر ابن عبد العزيز نبغي أني وحان هاي قفك سيانا هاي أني وحان هاي قفك سيانا هاي لأنه أديك وسأكت قفك هاي قفك أنا ساس أيات أورين كرتا إلهي وحو كتل مامي dadka markii dadka caanayaan oo kale dadka markii ku xad gudbayaan oo kale in laga jeesto ayaa loo baahan yahay